soo dhaweynta xiisaha iyo xamaasada badan ee bulshada reer Somaliland ee kuna dhaqan magaala madaxda caasimada Hargeysa ay ku soo dhaweysay wafdigii madaxwayne biixi uu horkacayay ee maalmahan u dambeeyay safarka shaqo ku joogay wadanka Kenya magaala madaxdiisa Nairobi. soo dhaweyn laxaadle oo aad u diiran ayay maanta ku qaabileen bulshada reer Somaliland gaar ahaan ku dhaqan magaalada Hargeysa iyaga oo calamo qoyan iyo sawirka madaxweynaha lulayay isla markaasina ku dhawaaqayay soo dhawow madaxweyne. soo dhaweynta ayaa ahayd mid daaran sida guusha leh ee ay safarkaasi madaxweyne biixi iyo wafdigiisu ka soo hooyeen safarkii ay ku tageen wadanka Kenya isla markaasina Kenya iyo Somaliland uu u bilaabmay xidhiidh qoto dheer oo diblomaasiyadeed isla markaana labada dal ay iska kaashan doonaan wax badan oo danahooga. safarkan ayaa ah mid guul weyn u soo hooyay Somaliland waa mid ay ku nayaayiroonayaan kuna faraxsan yihiin bulshada reer Somaliland iyaga oo madaxda iyo mas'uuliyiintooda qaranka mayalka u haya caleemo qoyan ku qaabilay isla markaana ku soo dhaweeyay dareen farxad leh oo ay ugu bogaadinayaan hawlaha shaqo ee ay dalka iyo dadkaba u soo qabteen. shacbiga reer Somaliland ayaa yar iyo weynba dareeno aad u qurux badan oo farxad iyo yididiile horli ay ka muuqato la dhinac ordaya kuna qaabilay wafdiga madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland ayaad arkaysaan isaga oo gacanta ululaya soo dhaweynta diiran.